waxaa sharaf weyn maanta noo inaan halkaan ku qabno war-saxaafadeedkan magaalada Cadaadad gudaheeda marka hore waxaan rabaa inaan aad ugu mahadnaqo madaxweyne Xaaf iyo dadka reer Cadaadad iyo reer Galmudug soo dhaweyntii wanaagsaneed iyo marxabeyntii aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha waxaan leeyahay ku soo dhawow Allah ku fududeeyo xilka aad qabatay hawl badan baa ku sugaysa Galmudug meel dhib yar maaha arrimaha sugayo oo arrinta gaalkacay iyo xawaalada ku xeeran oo dhan markaad eegto waxay u baahan tahay kulli shaqo adag oo kugu duceynaa Ilaahay ku fududeeyo xilkaas iyo mas'uuliyadda aad qaaday arrinta kale oo rabo marka inaan halkaan ka cadeeyo waxa weeye waxaan rabnaa dhulkan inuu nabad ahaado Soomaaliya nabad bay u baahan tahay gaar ahaan dhulkan amdaqada aan joognaana dadku dawladda waxay ka filaan waxa weeye in nabad galiya dadku ay helaan inay adeeg bulsho ay helaan inay horumar helaan wax walbana waxa furo u ah waa nabadda weeye madaxweyne Xaaf waxaan ku wada hadalay in aanu ka wada shaqeyno nabadda in si ilaahinimo ah oo daacadnimo ah oo la ka cabsi leh aan uga wada shaqeyno nabadda mudug iyo Puntland iyo Galmudug iyo Soomaaliya oo dhanba laakiin waxaan isleeyahay nabaddan gobolada dhexe iyo dhulkan ka dhalatay waxay furo u tahay nabadda Soomaaliyeed bay guud ahaan u tahay aan isleeyahay ay furo u tahay waxaan rabnaa marka hore inaan dhowr qodob aan ka wada hadalnay mid waxa weeye arrinta hadda daaqsinta ah shidadeedii soo laalaabatay dhacdooyin baa jiray ayaamihii u dambeeyay ka dhacayay dhulkan bariga gaalkacyo ah dadka waxaan u baaqaynaa nabad waxaa jira dhul wali abaar ah oo abaarta ay ka jirto dad Soomaaliyeed dhulkaas ku abaarsaday oo soo hayaamay baa jira oo ka soo hayaamay dhanka Galmudug una hayaamay dhanka Puntland aan dadka reer Puntland ugu baaqaya waxa weeye waan ogeyn abaarta xanuunka ay lahayd waan ogeyn intii Ilaahay aan baryayna inuu naga qaado haddii Ilaahay anaga naxariisna siiyay oo uu noo naxariistay anaga aan naxariisnana la ka rabaa arabna marka dadkaas walaalaheena ay soo hayaamay si nabad ah in lagu soo dhaweeyo ay biyaha iyo daaqsinta waxay u baahdaan in Ramadan baan ku jirnaa ajar bay leedahay bini'aadamnimada faraysa walaaltinimada iyo darisnimada ayaa faraysa intaas xaq la isku leeyahay marka in la soo dhaweeyo si wanaagsan loo soo dhaweeyo ayaan rajaynaynaa waxaan rabnaa sidoo kale marka odayaasha iyo ciidamada meesha joogahay inay arrintaasi ay sugaan waliba waxaan rabnaa sida aan kala hadlay saraakiil Puntland ah in ciidan isku dhaf ah oo dhulka ilaaliya الحدك أو نبض كشغياه إلا سميه أو عدي مركزي شدة يشغله وده قعن بير لجو قبته لبضع دنعبة قعن بير كو قبتان أو أتكيا ودنبينتنا وحوي سي أرنتن قال كعي حل وار الله وهلا ينبض إن بلندن بأنكيا لأنه أنا جاي مدحوينه سيدي أنا هوشاس لو جري لها لو نسوا أفشري لها ودنبيننا ugu muhiimsan waxay tahay oo runtii wax nabadgelyada furo oo qayb ka qaadan kara dadku inay isu socdaan in jidadka la furo in nabadgelyada laga shaqeeyo in ganacsiga iyo isu socodka iyo dadka iyo gaadiidkuba ay fasaxan yihiin oo si wanaagsan dadku ay isu dhaxmaraan taa laftigeeda nabadda ka qayb qaadanaysa kalsooni abuuraysa walaaltinimo ay muujinaysa ehelnimo ay muujinaysa taa laftigeeda in lagu dadaalo ayaa rajaynaynaa waxaan leeyahay ilaahay niyadayda ha noo qaado dhibta iyo colaadana iyo ha naga yareeyo walaaltinimo iyo ehelnimo iyo darisnimona lagu wada nool ayaan rajaynaya waa mahadsantahay